أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. maanta waa maalin jimca bishii sagaalaad toddobadeeda saacadu waxay ii tahay about 10 o'clock in the morning. waxaan rabaa inaan insha allah idin dhaho kulligiin oo dhan jimca mubaarak. ilaahay subxaana wa tacaala jimcaha ha ina waafajiyo wanaaga. ilaahay ha ina waafajiyo khayrka. ilaahay subxaana wa tacaala ha inaga dhigo kuwo uu ilaahay waafajiyay saacaddii mustajaabada ee ilaahay subxaana wa tacaala uu ducada aqbalaya. ilaahay subxaana wa tacaala ducadeena ha inaga aqbalo hana inoo dambi dhaafo insha allah. waxaan rabaa videogan yar inaan maanta uga hadlo insha allah fadliga uu leeyahay inuu qofka iska cafiyo. qofka bini aadanka ah inuu galo qalad ama uu qof qalad ka galo ama ilaahay uu qalad ka galo waa wax ilaahay subxaana wa tacaala fitra bini aadanku ilaahay ku abuuray. laakiin qofku inuu qaladkiisa kasoo noqdo ayaa waxay tahay geesinimo, ayaa waxay tahay wax ilaahay subxaana wa tacaala uu jecel yahay. qofka necessarily aad cafiso waa wax wanaagsan. ilaahay subxaana wa tacaala qur-aankiisa marar badan ilaahay uu nagu amray. إلهي سبحانه وتعالى آيات قرآن واتقولها جزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. هدي دب لغو جيست دبك لغو جيست من لم يذقفك أو جيستن كرتا فمن أو جزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا قفك إسك عافية عفا وأصلح أو وناك سماية دحدحاء معناها إصلاحين سماية. من عفا وأصلح فأجره على الله. إلهي بأجر كيسا سينيا. waxaan rabaa naftayda yarta ah oo dembiga badan oo idinku liidata iyo tiinaba inaan u dardaarmo forgiveness, inaad dadka iska cafisaan. haddii aad qof cuqdad u haysid waxba kama faa'iidaysid. waxaan rabaa inaan kula wadaago, waxaa jirta gabar African American oo Muslim ah. wiilkeedii ayaa waxaa dilay wiil yar oo isaguna African American ah. markii maxkamaddii lasoo taagay ayay intay u istaagtay page-kayga hadaa ka raadiso waad ka helaysaa, ayay wiilkii haagaraysay oo waxay ku tiri anaa wiilkaa dhalay and I forgive you, anigii familkayga waan ku cafinay. waxay tiri wiilkayga maalintii ilaahay u qoray buu dhintay, laakiinse adiga ayaa ilaahay sabab kaaga dhigaya. wiil yar baad ahayd maalintaa dembiga iga gelaysay, inuu ilaahay subxaana wa tacaala ku tuso jacaylka iyo mersiga iyo naxariista. inagii oo muslimnimo ku dhalanay, gabadhaas waxaa laga yaabaa inay diinta islaamka soo gashay aysan ku dhalan. inagii oo Soomaali ah oo diinta la inagu dhalayna waxaan leenahay qiyaamahana horaro waa inoo qiyaamaha, waa inoo qiyaamaha. aniga xataa markaa xanaaqa waan dhahaa. laakiin waxaan ku leeyahay inaad qofka cafisid ayaa waxay ka fiican tahay inaad qalbiga wax ugu haysid. haddaa qofka cafisid maxay tahay faa'iidada aad ka faa'iidaysid? haddii ilaahay maxkamadiisa aynu isla wada tagno ogowey qofka qaladka kaa galay keliya maxkamadiisu meesha ma taalo, adna kuwa qalad ka gashay maxkamadooda taala. haddii aad cafisid qofkii adiga qalad kaa galay, sharaftaadii cirdigaaga ku xadgudbay, maalkaaga ku xadgudbay, dhiigaaga ku xadgudbay, haddii aad cafisid, if you forgive qofkii qaladka iyo dembiga kugu sameeyey, you know what you gonna gain. waxaa ka faa'iidaysa waxa waaye inuu Allah subxaana wa tacaala uu dhaho adoonkan hadduu cafiye adoonkii dembiga ka gala anigan aan ilaahay usaa kugu cafiyo. waxaan rabaa inaan ku dhaho markasta ilaahay aan usoo laabano, aan iscafino. aniga qof walba oon qalad ka galay siran wa calaaniya, anigoo ogya anigoon ogeynba, waxaan leeyahay anigoo ah Xafsa Muuse Nuux aka Faadimo Cali umu Cibaaduraxmaan, fadlan icafi, weliba ilaahay dartii igu cafi. wax kasta oon kuu geystay, haddaan qowl wax kugu geystay, haddaan ficil wax kugu geystay, haddaan wax walba carab wax kugu geystay,
please iska kee cafi, ilaahay ha ku cafiyo. aniga qof walba oo wixii geystay ilaahay dartiisaan u cafiyey, because waxaan rajaynayaa inuu ilaahay subxaana watacaala maalinka hortiisa aan tago ilaahay taa darteed iigu dambi dhaafo. waxaan idin leeyahay sida gabadha African Americanka muslimada ah ay u cafisay wiilkii wiilkeeda dilay, it's very hard. I don't know ina aniga xataa samayn karo, wadnaheedu waa maasha Allah ilaa gaaladii ooysay iyadoo aan diinta islaamka ku dhalan oo micnaha laga yaabo inay soo islaamtay ayaa ilaahay subxaana watacaala wuxuu gaarsiiyey darajada intaa la eg inay wadnaheeda ka soo goyso inay cafido qofkii wiilkeeda adduunka ay ugu jecleed intaasoo soo korinaysa, wiil wax bartay ah, ciidamada neefiga ku jiray, wiil aad maaragtay u qiimo badan ahaa, wiilkii yarka ahaayoo isagoo roobargaraynaya dilay ayay waxay u cafisay ilaahay dartii. waxaan kaloo rabaa inaan kula wadaago gabar kale waxaa jirtay annaga gobolkan Minnesota, gabar yar oo Soomaaliya ayaa naag maqaaxi dhexdeed waxay ku dhufatay garaafe, gabadhii halkaa bushintaa jeexantay, wararka dhan ay ku jirtay. gabadhii markii naagtii la xukumay maxkamadii ayay waxay ku tiri waan ku cafiyey. you know what, gabar yar bay ahayd, but haddaa garage haysatid ama cudad haysatid ama qof caloosha wax ugu haysid waxba ma faa'iideysid. sometimes dadku waxay u maleeyaan haddaad tiraahdo dadka waan cafiyey, aniga adna cafis weydiiso qof baa wuxuu ku leeyahay aniga dadka i cafiya ma dhaho. guess what, anigaa ku dhahaya cafi, because if haddaa i cafisid anigana aan ku cafiyo waxaa laga yaabaa inuu ilaahayna cafiyo, dunuubta aan kala galayno maalinta maxkamadiisa aan tagno inuu ilaahay noo dhaafo. waxaan ku leeyahay walaal i cafi, ana waan ku cafiyey, dembigaan kaa galay anoo og iyo midkaan kaa galay anoon ogeyn iyo midkaan kaa xantaan ku xantay iyo gafkaan kuu gafay iyo magacaaga haddaan damage u geystay iyo wax aliyo waxaan kugu sameeyey ilaahay wajigiisa igu cafi, anigana waxaan kugu cafiyey ilaahay wajigiisa. waxaan rabaa ilaahay subxaana watacaala wuxuu yiri acuudu billahi min ashaytaan rajiim, kullu man calayha faan, adduunyadan wixii dusheeda saaran way dhamaanayaan, wayabqaa wajhu rabbika dhil jalaali wal ikraam, waxaa baaqi noqonaya ilaahay subxaana watacaala wajigiisa karaamada iyo ilaahay subxaana watacaala wajigiisa weynaanta u saaxiibka ah. ilaahay wuxuu ku yiri aayadda kullu man acuudu billahi min ashaytaani rajiim kullu man calayha faan ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام ذو الجلال والإكرام. wax kasta oo adduunka dushiisa saaran way dhamaanayaan, waxaana baaqi noqonaya ilaahay wajigiisa allaha weynaanta iyo cadamada u saaxiibka ah. waxay ku jirtaa suuratu raxmaan. ilaahay subxaana watacaala wuxuu kaloo yiri, ilaahay subxaana watacaala wuxuu kaloo nabigiisa sallallahu alayhi wasallam markuu la hadlayay wamaa jacalnaa libasharin min qablika alkhuld فإن مت فهم الوارد فهم الخالدون. إلهي وحده سبحانه وتعالى أدون كان إنا لغواري. إلهي سبحانه وتعالى وحير وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. نبي محمد عليه الصلاة والسلام إلهي وحكوده قف أديك كاهري أدون كان أمانا دينين إنه كوار حديئة أديك ديمنتد أفإن مت فهم الخالدون حديئة أديك أدمت ما إيجا واري لا نبي محمد عليه الصلاة والسلام خير خلق الله حدي ودنتي أنيجنا ما وارايو أديجنا ما واريست. إله سبحانه وتعالى وحكلو يري بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. إلهي وحكوده سورة أنبياء كل نفس ذائقة الموت، نفس كست موت كويدة دمينيسا نفس كست موت كويدة دمينيسا. إلهي سبحانه وتعالى وحويري ونبلوكم حادنكم امتحامنا بالشر الشرك والخير خيرك نفترك سواء امتحان. إلهي وحوده لبضب وإنكم امتحامنا وإلينا ترجعون. أنا حق يقول سولا أبنيسين وحان كلايهي أنا حفصة مصنوح AKA فاطمة علي AKA أم عباد الرحمن waxaan ku leeyahay please adduunkan laguma waaraye forgive me I forgive you aan kulligeen iswada cafino kulligeena aan ka rajeyno ilaahay inuu na cafiyo dunuubteena noo dhaafo maanta waa maalin jimco ah ilaahay waxaan ka baryayaa
inuu ilaahay saacadda mustajaabadana waafajiyo ilaahay gefkeena iyo geerideena uusan kulmin waa anigoo xafsa muuse nuux kulligiin oo dhan idiin umu cibaaduraxmaan kulligiin oo dhan idiin jecel for sake of allah aan idiin jeclayn qabiil aan idinku jeclayn lacag aan idinku jeclayn qurux aan idinku jeclayn anything of that wax ka mida wax adduunyada idinku jecel for sake of allah waxaan idin leeyahay maalinta waqtigaa joogtaa ku wacnaado waxaan ku leeyahay ilaahay hana hanuuniye aan dadaalno asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu